noocyada dumarka ugu adag ee lala macaamilo ayay ku sheegeen culimada psychology-ga ama wax loo yaqaano cilmu nafsiga ayay ku sheegeen dumarka leh sifooyinkan soo socda. waa dumarka aan danaynin lacagta, kuwa aan lagu siri karin hadiyadaha, waa kuwa aan dhan ka lahayn nooca gaarigaaga, saacadaada, gurigaaga ama dharka aad xiran tahay, isla markaana aadan awoodin inaad qanciso xitaa haddii aad u iibiso wax ugu qaalisan ee dunida yaala. balse waxa ay sheegeen culimada ku takhasuso cilmu nafsiga inay ku weyn tahay oo kaliya sidaad ula dhaqanto, ixtiraamkaad u hayso iyo inaad garab istaagtay maalintii ay kaaga baahnayd inaad garab istaagto. taageero ma u ahayd markii ay ku jirtay xaalad murugo ah oo ma la qaybsatay markii ay daciiftay, mise waa maya? waxyaabahan ayaa iyada quseeya. waa qof adag laakiin ilinteedu waa ay dhowdahay, way saamaxaysaa laakiin way adag tahay inay ilowdo sababtoo ay tahay hore ayay u soo dhigatay cashir ku filan, mana rabto inay mar kale ku dhacdo godkii hore oo kale. sidoo kale culimada ku takhasustay cilmu nafsiga waxa ay ku sheegeen in dumarka ugu adag ee lala macaamilo inay yihiin kuwo u qosla si daacad ah haddii ay doonaan inay qoslaan, haddii ay dhacdo inay wax jeclaadaanna waxay u jeclaanayaan si dhab ah. sidoo kale haddii ay murugoodaan, murugtoodu waa mid dhab ah oo waxa ay ka dareemaan qalbiga, waa ayna adag tahay inay hore uga soo kabsadaan. sidoo kale dadka ku takhasusay waxa loo yaqaano psychology-ga ama cilmu nafsaaniga ah waxay ku qeexeen in dumarka ugu adag ee lala macaamilo inay aaminaan in jacaylku aanu iyagu ku habboonayn, sababtoo ah marka ay maseeraan waxa ay dareemaan maseer waali ah. sidoo kale marka ay cabsadaan waa ay fogaadaan. sidoo kale marka ay dareento in hankeedu uu khatar ku jiro waa ay tegi doontaa. ugu dambayn, ragow, haddii nasiibkaaga ama calafkaaga uu noqdo nooca dumarkan oo kale, waxaa lagaaga baahan yahay 3 qodob. qodobka koowaad waa xushmayn, kan labaadna waa xanaanayn, halka kan saddexaadna uu yahay xaq dhowr.